الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونحسن ذي الهنتي ميل كستو عنا قد داونا يسان داوديال kusoo dhawaada barnaamij gaaban oo waraysi qaas ah aan kula yeelanay qoraaga Soomaaliyeed ee caanka ah adduunka oo dhan laga yaqaan Nuruddin Faarax inagoo waraysigani aan u soo xulanay iyadoo lagu jiro 40 sano guuradii ka soo wareegtay farta Soomaaliga taasi oo lagu qabtay magaalada Djibouti ee dalka Djibouti ayaa waxa aan jeclaysanay in Nuruddin Faarax marka ugu horeysa aan weydiino micno intee la eg ay ugu fadhisaa farta Soomaaliga gaar ahaan afka Soomaaliga kuna soo dhaw barnaamij waa mahadsantahay midda u horeysa aad baan ugu faraxsanahay in afartan sano markii ka soo wareegtay maxay ahayd qoridii af Soomaaliga la qoray in la sameeyay sabab badanna Soomaaliga aniga qaalib iigu yahay midda u horeyso af Ingiriisi hadda ku qoro marka la weydiiyo war Nuruddin oo maxaad Ingiriisi waxa ugu qortay hadda Soomaali waxa ugu qori weysay jawaabtaan bixiyo waxa weeye markaan bilaabay aniga wax qoridda 1965 ma qorayn af Soomaaliga marka maadaama aniga himmo weyn ay igu jirtay inaan wax qoro buugag iyo sheekooyin iyo masraxiyaad iyo maaragtay inaan qoro waxay khasab igu noqotay in afafkii aan markaa aqoonay oo ah af Ingiriisiga iyo Carabiga iyo Amxaariga afka looga hadlo Ethiopia maxaa jiray Ethiopian iskuulka qaarkii ka dhigtay iyo Talyaaniga afafka inaan ku shaqaysto ilaahay wuxuu qadaray inaan ku bilaabay inaan wax ku qoro af Ingiriisiga af Ingiriisigii sidii aan u watay wax qoridii af Ingiriisiga aan ku qoriyay ee af Soomaaliga la qoray 1972 1972 markii af Soomaaliga la qoray ayaa waxaan ku fikiray isla markiiba 2 bilood kadib inaan ku qoro daabacana novel book sheekooyina marka waxaan daabici jiray week waliba safxaad kamid ah maxay ahayd buuggii markaa aan qorayay oo magaciisu uu ahaa tolow waa tale ma buuggii waxaan bilaabay sheekooyinkii inaan daabaco sheekadii dheerayd sheeko dheer oo isku xiran oo novel af Ingiriisiga waxa lagu yiraahdo sidii aan maalin week waliba loo soo daabaci jiray maalintii dambe dawladdii Maxamed Siyaad Barre waxay lahaan jirtay wax la yiraahdo censorship oo ah meel la iska controlayo ruuxii wuxuu ku fikirayo wuxuu dhahayo wuxuu qorayo kuwii censorshipka ayaa marka waxay yiraahdeen Nuruddin oo balkaale xafiiskii baa laga marti qaaday buuggii hortiisii intii wixii markaa wiiga soo socdo la daabici lahaa inta la hor keenay waxa la yiri bal eego noo macnaa waxa kan maxay yihiin anna hade wiil yar baan ahayo isla weyno aqli darre hayso waxaan iri maadaam waxa kan uu yahay suugaanta lama micneeyo ruux waliba suugaanta micnuhu markaa isaga ka fikiri karo ka heli karo waa inuu ka kasbado ma macneenayo waxa la diiday markaa in buuggii daabicidiisii journaalka ku soo bixi jiray wiigiiba mar in la gooyo midda labaad qolyihii censorshipka waxay aniga igu yiraahdeen mar dambe Nuruddin Faaraxow wax allaaliya waxaad qortay af kastuu yahay laguma daabici karo Soomaaliya gudaheeda laguma daabici karo markaan ka soo dhiidiyay oon isku soo taagayna waan ku xiraynaa bay yiraahdeen anigoo hadee isaga baqay in la xiro ayaan ka soo tagay marka af Soomaaliga waa isku dayay marar badan inaan wax ku qoro laakiin maadaama markaa 1900 iyo markaan ka hadlayno waxa weeye 1973 March maadaama aanay ii suuragelaynin in meel kale aan ku daabaco waxaan ku noqday inaan wax ku qoro af Ingiriisi qiimo weyn buu u leeyahay Soomaaliya oo dhan in la qoray fartan qiimo weyn buu u leeyahay sababtoo ah awal annaga waxaanu ahaan jiray dad markaanu isu tagnoon wada hadallana af Soomaaliya ku hadli jiray
markaan wax isu qoraynana waxaanu ku qori jiray maxay ahayd afaf ajnabi waxaan xasuusnahay aniga shaqada markaan bilaabay anigoo karaani ah 17 jir 18 jir anigoo karaani oo typista ah wasiirka ama nin head of department intuu ii yeero ayuu wuxuu dhihi jiray Nuruddin safaaradda Mareykanka ama safaaradda Ingiriiska ayaa waxaanu u qoraynaa waraaqdii ama Talyaaniga waraaqda la qorayo aniga af Soomaaliya la iigu sheegi jiray anna markaasaan waxaan ku bedeli jiray af Ingiriisi ama af Talyaani ama af Carabi markaa lagu qorayay marka afafka badan looma baahnayn tacliinta Soomaalinimadannada waxay aad iyo aad bay u horumari lahayd haddii afkan la qori lahaa mar hore aad ayaad u mahadsan tahay waa faahfaahin aad iyo aad u wanaagsan hadda kulley 40 sano ayaa kasoo wareegtay afka Soomaaliga waadna usoo joogtay xilli afka Soomaaliga aan waxba lagu qori jirin hadda dad fara badan oo Soomaali ah oo generation yar ah ayaa ka faa'iideystay in ay isku kala qoraan farta Soomaaliga marka 40 sano ee la soo dhaafay farta Soomaaliga intee la eg ayuu ka galay dunida mustaqbalkiisana ka waran isaga midda u horeyso af Soomaaliga qoridiisa iyo baryahan dadaalka laga sameeyay Djibouti muxuu ahaa madaxweynaha Ismaaciil Umar Geelle dadaalka uu sameeyay qaamuuska ay sameeyeen waxyaalahan oo dhan faa'iidooyin badan ay leeyihiin midda u horeyso waa inaanu xasuusano intay Soomaaliya dawlad la'aanta ahayd inta la isqabqabsanayay qabqablayaashana ay meesha haysteen Soomaaliga dhibaato weyn baa ku dhacday mid u horeyso waxa ku dhacday waxa weeye Carabigii ayaa Soomaaligii suuqa ka saaray suuqa wuxuu uga saaray agoo dawlad ma jirin dhihi karaysa af Soomaaligii waa in carruurtii Soomaalida waa in loogu qoro af Soomaali ma jirin dawlad dhahaysa manhaj maaragtay duruus loogu dhigo oo af Soomaaliya oo dawladdu soo dejisay oo Soomaaliya oo dhan wixii Soomaaliya oo dhan isku xiraya ma jirin midda saddexaad waxaa muhiim ah inaanu sheegno carabtu waxay ka heleen faa'iido badan dawlad la'aanta markaasaa waxaa jirta iskuullo xamar ku yaala dhowr jeer baan tegay aniga 5-6 bilood ka hor xamar markaan joogay iskuullo xamar ku yaala qaar waxa weeye manhajkooda waa Kuwaiti kuwana manhajkooda waxa weeye Saudi Arabia kuwana manhajkooda waxa weeye Abu Dhabi hadda waxaanu rajaynaynaa maadaama madaxweynaha Soomaaliya federaalka president Hassan Sheikh Mahmoud maadaama uu maalmaha kan isagana ka qayb galay waxaan rajaynayaa in faa'iidada laga heli karo ay noqoto in manhaj af Soomaali ah oo carruurta loogu dhigi karo oo ka saaro af Soomaaligii qaharka Soomaaliga uu ku jiray 2 sano ka hor waxaan aniga tegay Puntland waxaan u tegay waxay ahayd in laga hadlo sida manhaj loogu sameyn karo area-da Puntland manhaj bay leeyihiin oo af Soomaaliya waxaan u malaynayaa markaa maxaa la yiraahdaa 26 June inay tahay u malaynayaa sanad waliba waxaa la dabaaldegaa afka hooyo afkii hooyo khatar badan buu galay marka waxaad helaysaa ruuxii hadda waxyaalaha aniga oo caawiyay Soomaalinimadayda weligay aanan shaki igu jirin inaan Soomaali ah waxa mid u horeyso af Soomaaliga aan si fiican u bartay af Soomaaliga barashada aan si fiican u bartay waxay awood ii siisay inaan afaf kala badan 7 af oo kala bartay aanan af Soomaaliga ahayn taas waxay ku suuragelinaysaa in ruuxii haddaadan dalkaada aqoonin aadan dadkaada aqoonin aadan afkaada aqoonin ma baran karaysid af kale waxaan xasuusnahay inan yar oo Soomaaliya oo qaxooti ku ahaa Mareykan oo isagoo yar ka soo tegay isagoo yar yani markaan leeyahay waxa weeye 15 jir isagoo ka soo tegay 10 sano kadib Mareykan markuu ardayga noqday isagoo anigoo jaamacad dhigaya
mar allaaliya markay dhibaato noqotay inuu ku fahmo wixii af ingiriisi ayaan waxaan isku dayay inaan af soomaali ugu sheego af soomaaligiina ma uusan aqoon dhibaato weyn weeye dhibaatada weynna waxaa noo keenay manhajyada isku xiriirsan united manhaja oo isku mid ah haddii aanan lahayn wasaaradda tacliinta haddaanay lahayn manhajyo mid ah oo soomaaliya oo dhan looga shaqaysan karayo inta dowladda federaalka ah looga shaqaysanayo manhaj la isagana daydo in af soomaaligii kobcintiisii aanu ka shaqayno af soomaaligu waa baaba'aya annagana ka mujtamac ahaan waanu baaba'ayna mujtamac ahaan waan baaba'ayna maalin dhaweyta waxaan dhigay aniga maraykanka masraxiyad baan ka sameeyey masraxiyad 2 saacadood soconaysa oo af ingiriisi ku qoran oo la yiraahdo a stone thrown at the guilty dhagax lagu tuuray dambiile waxa weeye seefta loo wado nin muxuu ahaa munaafiqa waxay ku dhacdaa miskiin maamaha ah ayaa jirta sidaas oo kale af ingiriiska waxaan ku bedelay a stone thrown at the guilty hits the innocent ruuxaanan dembiile ahayn buu ku dhacaa dhagaxii dembiile loo wado ruuxaanan dembiile ahayn buu ku maaragtay ku wada marka maxaa looga hadlayay waxaa looga hadlayay masraxiyadu waxay ka hadlaysaa 1922 sheeko ka dhacday burco uu markaa ingiriisigu haystay marka ingiriisigu uu yiri far soomaaliga ayaa af soomaaliga nu qoraynaa waxaanan ku qoraynaa af laatiin mujtamacii soomaalida reer burco way dhagaxyeeyeen ninkii dhagax bay ku maaragtay ku tuurtuureen dad baa la xirxiray dad baa waxa lagu xukumay intaasoo sano dadna waxa lagu xukumay intaasoo sano dil sababtu waa maxay aanu dhihi jiray annaga af soomaaliga lama qori karo waxaana loo malayn jiray na lagana dhaadhacsiiyey aniga waa soo gaaray af soomaaliga oonan qorayn waxaana laga dhaadhacsiiyey haddaa af soomaali lagu qoro af laatiin roman haddii lagu qoro gaalnimaa noo imanaysa ma fahmaysa gaalnimaa noo imanaysa marka taa waxay keentay jaahilnimadanada haddaanu annaga ka fikirayno ilaahay caabudidiisa af kastood ku caabudi kartaa ilaahay inkastoo annaga aanu wada naqaano carabigii faatixadii iyo diintii aanu ku akhrisan karayno carabiga marka waxaa aniga aad iga farxinaya in 1972 la qoray af soomaaliga waxaa hadda iga farxinaya in dadaalkii la dadaalayay maaragtay uu miro dhaliyay inuu miro dhaliyay waxaa kaloo iga farxinaya intaasoo joornaal inaan ku akhrin karo waxaa laga yaabaa marmar wardheer news ama hiraan online radio muqdisho ayaan aniga dhegaystaa internetkan ku dhegaystaa marka fursado badan buu ruuxii ku helayaa in maxay ahayd uu af soomaaligii ku qoro kuna akhriyo midda loo baahan yahay kolana waxaa weeye hadda in wax la yidhaahdo standardization midayn kelimaadkoo dhan sida loo dhigayo shaqalada meeshay kala leeyihiin kan dheer kan gaaban maxay ahayd prepositionka wax lagu yidhaahdo ma aqaan af soomaaliga kelimaadka isku xirxira waxyaalaha isku xirxiran oo dhan in laga shaqeeyo oo Somali Language Academy akademiyada markii hore aanu lahaan jiray in la soo nooleeyo dadka wax ka shaqeeya af Soomaaligana ay maaragtay ka shaqeeyaan shaqo badan baa hadda noo taal shaqo badan ayaa taal sida ay u taalo dawlad soo dhisidii labaad maaragtay mar kale sida ay noo taalo dadkii in wax la baro agoo jaahilnimo ayaa waxay socotay 20 sano waxaa loo baahan yahay af Soomaaligiina mar labaad in akademiga inta la furo aanu ka shaqeyno adeed u maasan tahay inta badan waxaad sheegtaa in qoraalada aad qorto ujeedooyinka ugu weyn ee aad ka leedahay ay tahay jiritaanka Soomaalinimada bal wax sharaxaad ka bixi adigoo Soomaalida aan wax u qorin
oo af soomaaliga aadan waxba ku qorin oo buugaag soomaaliya aadan soo saarin maalmihii u dambeysay sidee ayay u caawin kartaa in jiritaanka soomaalinimada aad qoraalladaada aad ugu taakulayso mid u horeysa soomaalinimadu waxyaale waxaa jira soomaali naga dhiga jid haddaan marayo hadda oon adiga maxamed muuse oo kaa hor imaado 80% waxaan isdhihi karaa waa soomaali soomaaligu sibuu u socdaa markuu socdo sibuu u dhaqmaa markuu dhaqanayo wax sibuu u hadlaa soomaaliga waxyaalaha kale oo kamid ah aniga aan baryaha kan oo dhan ka hadlayay haddana aan ka hadli doono waxa weeye soomaalinimadu waxay ahayd mid aanu isku naqaano soomaalinimo haddaan ka hor imaado naag soomaaliya markii dagaalka ka hor dagaaladan sokeeye ka hor waana qiinay naag soomaaliya markaan ka hor imaado guntiinay xirrayd garbasaar bay xirray maxay ahayd gambay xirrayd dirac baa la xiran jiray dhar sidaas oo kale loo xiran jiray waxyaalaha aanu isku tilmaami jiray soomaalinimada ayaa ahayd marka hadda waxaad aragtay soomaali badan oo ka tegay wixii oo dhan soomaalinimadii shaki buu galay midda u horeyso soomaalinimadii shaki buu galay politically markaanu ka hadallo sababtoo ruux waliba wuxuu yidhi aniga qabiil hebel baan ahay aniga qabiil hebel baan ahay waxaa lagu qaybsanayaa 4.5 waxba laguma qaybsan karo 4.5 waxba laguma qaybsan karo sababtoo ah soomaalinimadu way ka soo horjeedaa 4.5 ninkii wanaagsan oo soomaali u wanaagsan waa inuu helo ma aha nin sheeganaya inuu mathilo qabiil dad waxaa jira annagoo badan aanan qabiil ka tirsanayn weliganana aanan aqoonin shaqadanadana aanan ahayn waxna u tari kara soomaali laakiin waxaa la leeyahay 4.5 waa inaad soo gashaan waxyaale aanan shaqaynayn waxaa ka mid ah 4.5ka noo sameeyey nin la yidhaahdo muxuu ahaa melle sanaawi kan etoobiyaankii kii dhintay ayaa wuxuu yidhi soomaali sida aan nooga adkaano annaga inaanu ka adkaano soomaali oon meel allaali iyo meeshay galaan aan nooga hortegi karro horta baanu aanu qaybino qabiil ka soo horjeeda midda kale jibsin ka soo horjeeda war sida tan ma aha soomaalinimada waxaa weeye waa ruuxii inuu rumaysan yahay inuu soomaali yahay soomaalina wax wanaagsan u samaynayo soomaali wax wanaagsan inuu u samaynayo nin allaali ninkii la soo boodo yiraahdo aniga waxaan mathilayaa qabiil hebel hebel baan mathilayaa haddaad tiraahdo war goormaad soo masish nin sheeganaya inuu kismaayo dadkooda mathilo kismaayona weligii aanan tegin goormuu noqonaya markaa goormuu mathili karaa nin aanan ka sheeganaya inuu ka yimi booramuu ka yimi wuxuu mathilayaa dadkii ree boorama goormaa lasoo doortay marka u horeysa marka yaanan isku dardarin waxyaalaha kan qaarkood aanu niraahno ilaa hadda sheekada siday tahay waa ku meel gaar waxa kan aanu samaynay oo ah ilaa aanu ka helo nabaddaasoo noo ogolaanaysa in xisbiyo aanu furanno tan aanu kusii shaqaysanaynaa haddii la yidhaahdo waa mid laakiin haddii aniga la yidhaahdo nuuraddiinow waxaa ku mathilaya hebel su-aal baa iga imanaysa aniga muxuu ii mathilayaa aniga ma dooran siduu ii mathili karaa aniga haddii la yidhaahdo isku family baa tihiin war goormuu aniga inta la ii yimi la yidhi maxay ahayd midda kale ogow 4.5ku mushkiladda weynay leedahay waxaa weeye laba dhinacba mushkilada waa u leedahay midda u horeysa waxaa weeye dad soomaaliyo badan oo aad iyo aad u tiro badan oo aanu xaqiraa jira waanu xaqiraa dadkii la xaqirayay xaggee ka soo gelayaan meesha 0.5kii ka soo gelayaan miya maxaa dadna ka dhigay 0.5 dadna ka dhigay 1
waa xaqdarri. midda labaad dumarka haddii soomaalida traditionkii soomaaliya haddaad raacdid soomaaliya traditionkeedii wuxuu ku sheegayaa in dumarku aanay qabiil lahayn ninka guursada qabiilkooda ama aabbahood qabiilkooda hadda maxaa la yidhi dumarkii waa in 30% la siiyo soddonkii maxay ahayd 30%. haddii la yidhi sidaa ra'yiga xagguu ka yimi wuxuu ka yimi dowladaha kanna masruufa ayuu ka yimi dumarku waa inay heli karaan 50%. maxaa u diidaya inay 50% helaan maxaa loogu ekeenaya 30%. 30% hataa loo aqbalay maanay helin hadda 100% waxay haystaan 14. dumarka waa laga gardaran yahay soomaaliya haddaanu nahay carruurta waa laga gardaran yahay waxaan rajaynayaa kollana ducana aanu u ducaynaynaa dowladda tan hadda timi uu madaxda u yahay muxuu ahaa xasan sheekh maxamuud shirdoonna uu maaragtay prime ministerka ka yahay ilaa hadda dhawaaqa ka soo baxaya aad baan ugu bogay ilaa hadda waxyaala waxaa jira aanan hadda iska sheegayninoo la iska dhaafi karo laakiin ilaa hadda waxay og yihiin dad shaqaynaya shaqadii ha wataan waanu u ducaynaynaa waa mahadsan yihiin waanu la shaqaynaynaa aniga agooma degani meesha laakiin haddii aniga wax soomaali ay iiga baahan tahay waa soo geli karaa inaan dadkii la shaqeeyo wax laali wixii soomaali hagaajinaya ayaa soomaalinimadan ka mid ah kuma qoro af soomaali sababtiina waa kuu sheegay de markaan aniga wax qoray af soomaaliga ma qorayn intaasoo sanana waa ka soo maqnaa hanjabaadii maxamed siyaad baroo dhihi jiray hadduu nuurudiin lug soo dhigo dalka waa dilayaana waa jirtay oo kuma noqon karaynin kollana waan ku tala jiraa inaan qoro af soomaali waxaan jeclahay inaan masraxiyado 4-5 masraxiyado maxaa la yidhahaa teatro aan qoray kuwaasaan ku tarjumi doonaa af soomaali waxaa laga yaabaa inaan haddana bilaabo inaan bug kale ku qoro af soomaaliga 1970 waxaad qortay buuggii aad ugu magac dartay croquet rib oo aad kaga hadashay gabar yar oo lagu qasbaya inay guursato nin weyn bal taasi ayadana dib ugu laabo oo sharxaad ka bixi bal meesha ayna dhigtay haddii aan nahay soomaali anigoo arday ah oo 22 jira oo markaa india arday ka ah sanadka labaad jaamacadda sanadka labaad ku jira ayay buugga igu soo dhacay oo buugga aan qoray from a crooked rib ku saabsan gabar 18 jira oo awowgeed uu yarad ka qaatay nin saaxiibkiisa oo isagana 60 jira gabadhii haddee markaa waa iyadii ka carartay meeshii waxaan markaa qiyaasayay kollana gabadhu meeshay ka cararayso inay tahay mustaxiil qalaafa feerfeer meelaha markaa ay u gudbayso ilaa maxay ahayd beledweynena markay tagto ay ku degto ninay ilmo adeer yihiin oo markaa kontrabaanka ka shaqaysta kontrabaankii isagoo wata oo alaabtiisii sidaa u soo gelinaya magaalada kontrabaan ayaa la qabanayaa alaabtii baa laga xaraashaya lacag la-aan markay kusoo dhacdo gabadhiibuu markaa wuxuu ka iibinayaa agoo yarad qaadashada waa iibis gabadhiibuu wuxuu ka iibinayaa nin meesha joogay agtiisa guriga ku jiray oo cawil la yidhaahdo gabadhii iyadoonan waxba shukaansi ah aanan lala gelin ninkiina uunan la hadlin ayuu cawil
kufsanayaa naagti aga waa naagtaydii buu leeyahay marka sheekadu waxa weeye horta sheeko aan Soomaaliya ka dhici jirtay oo tiro badan maxaa jira waxaan xasuusnahay aniga 1974 anigoo jooga xamar baar shaah anoo ka cabahaya gabadha ceebla la yiraahdaa inay naag Soomaaliya ay timid oo ay tiri war Nuuridiin Faarax Maadiga lagu yiraahdaa ayaan irahaa waxay tiri Nuuridiin oo sheekadaad qortay waa sheekadaydii magacayga ceebla weeye nin sidaas oo kale ahaan maaragtay awowgay baa nin igu daray waan ka soo cararay walaalkay maaragtay ninaan ilma adeer ahayna wuxuu igu daray nin waan ka cararay xamar baan tegay oo nin baan guursaday marka sheekooyin sidaas oo kale oo markaa socday kolana waa ay jireen sheekadii sidaasay igu bilaabatay ilaa intii ka sokaysayna intii ka dambeysay 1970 intii ka dambeysayna dhowr iyo 10 buug baan qoray 12 13 buug baan qoray mar waliba aniga waxaan ka sheekeynayay Soomaaliya markaa wixii ka dhacay sida ila ahayd maxaa jira waxaan qoray 3 buug oo ku saabsan maaragtay dictatoriyadii madax keligii talihii Maxamed Siyaad Barre keligii talihii Maxamed Siyaad Barre markii dambana 3 buug oo kalena waxaan ka qoray marka ay bilaabanaysa dagaalkii Itoobiya Soomaaliya 1977 markuu bilowday ilaa intuu dhamaanayay iyo ilaa burburkii Soomaaliya ay gaaraysay burburkii kadibna 3 buug oo kale aan ka qoray marka weligay aniga waxaan qoraa buugag ku saabsan sheekooyinka ka socda Soomaaliya inkastoo maogtaa saan kuugu sheegay aanan ku qorin af Ingiriis dawdash inta badan waxay isweydiinayaan haddii Nuuridiin uu qoritaanka u bilaabay inta farta Soomaaliga la unkan ka hor laakiin hadda af Soomaaliga uu 40 sano jirsaday muxuu 40kii sano ee la soo dhaafay oo ugu faa'iideey waayay qorista afka Soomaaliga ma la isdhihi karaa intaasi ay sabab u tahay suuq la'aanta ka jirta Soomaaliya markii buug la qoro aad adiga qoraaladaada aad ugu sii dhiirigelisay inaad afka Ingiriiska aad ku qorto maxay la'aan baa tiri suuq la'aanta afka Soomaaliga ma hadii mid u horeysa aniga buugaga waa qoraa laakiin ma daabaco daabicidii iyo wax la yiraahdo distribution qaybintii ayaa ka horeysa buugaga qoridiisa yani waxa weeye hadda mesela hal buug hadaan qoro waxa laga yaabaa isla buugii ayaa waxa lagu daabacayaa afaf badan qoridii haddii aanay jirin haddaanan anigii ka kasbi karaynin qootulyoonkayga haddaanan ka kasbi karaynin qoridii hadda maxaan sideen u qoraya maan jaamacad macallin ka noqdo waa argo jaamacad macallin baan ka ah markaan doono qoridii shaki aniga marnaba ima soo gelin in la qoro inay muhiim tahay afka lagu qorayo waa muhiim laakiin waxaa kasii muhiimsan qoridda in la qoro ma fahmaysa yani waxaan sheegayaa haddii 40kii sano oo af Soomaaliga uu qoraa aan hal buug oo Soomaaliya qoro ama 20 buug oo Soomaaliya haddaan qoro dadka akhriya buugaga Soomaaliga haddii aan hadda maanta aan buug ku qori lahaa Soomaali dadka akhriya iyo dadka akhriya markaan Ingiriisi ku qorayo waa isku mid agoo Soomaalidu wax akhriska ma taqaano runta la isu sheegaya Soomaali badan baa waxay tiraahdaa Nuuridiin waa kaatibka naga ninka wax qoro noogu weyn imsa akhrisay laakiin buugag waa yariin haddaan af Soomaali ku qori lahaana intaas oo kale u yaraan lahayn laakiin waxaanan heleen ruux daabaca ruux distribution keena midaan muhiimna way tahay suuq helidda haddii anigii aanan ka kasbi karaynin qootulyoomkayga himagelin maaragtay weyn ma jirto ya himagelin weyn ma jirto adiga hadda haddii lagu yiraahdo shaqee maalintaas oo dhan
waxna kama kasbi karaysid ma shaqayn lahayd runta aan ku weydiiye ya maya dhahde laakiin waa la bedeli karaa buugaga waxaa lagu bedeli karaa afaf kale maxaa jira af soomaaliga waxyaalaha soomaaliga korinaya waxyaalaha soomaaliga korin doona waxa weeye in maxay ahayd afaf kale laga soo tarjumo oo af soomaaliya lagu tarjumo hadda inta buugoo carabi ku tarjuman oo af ingiriisi laga soo tarjumay faransiis laga soo tarjumay buugagayga carabi ku tarjuman yihiin 7 buug oon aniga qoray oo af carabiga lagu akhrin karaa jira carabi bay ku tarjunsan yihiin maxaa soomaaliga loogu tarjumi waaya haddii ruuxii raba waa ku tarjumi karaa fasax waana leeyihiin ruuxii raba inuu ku tarjumo 1976 waxaa qortay buuggii la magac baxay Naked Nil cirbadii qawneed markii aad qortayna waxaad heshay digniin kaaga imaaday dowladii hore ee Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre oo ahayd in lagu xiri doono bal sharaxaad ka bixi maxay diidanayeen dowladii hore ee Soomaaliya markaas kadibna waxaa si musaafiris aad ugu soo baxday dalka Soomaaliya bal haddii aad si qoto dheer aad u fiiriso buuggaas aad qortay iyo dowladda kacaanka waxa ay diidanayd wallaahi waxay diidanayeen haddii aniga iimayni sheegin iyagu waxaa la diidanaa waxaa weeye nuurudiin wuxuu ku jeesjeesayaa baa la yidhi wax la yidhaahdo hanti wadaag kumana jeesjeesaynin ee waxay ahayd hanti wadaaggii oo meel laga sheegayey iyo waxyaalo kaloo si loo kala wadwaday ayuu buugga diidan yahay buuggu taasuu diidan yahay marka waxaa laga yaabaa middaa inay tahay midda labaadna waxaa weeye soomaalidu haddee markaa buugga lama qorin markuu maxamed siyaad barre uu iisoo sheegayo in maxay ahayd haddii aan dalka kusoo noqday in la xiri doono midda keliyuu sameeyey waxaa weeye waxaa fariin baa aniga la iisoo faray la yidhi haddaad timaadid anigoo Rome jooga dal Talyaani anigoo jooga oo soo socda xamar ayaa waxaa la yidhi ma soo noqon karaysid bal goormee aad qoritaanka bilowday buugaagta qortana tir intee laga gaaraysa sadii kartaa 13 buug baan qoray wax qoridana hadda waxaan bilaabay anigoo yar oo 16 jir aan wax qoridda bilaabay af ingiriisi baan ku bilaabay markii hore iska ciyaar bay ahayd 18 markii aan gaarayna journal la yiraahdo Somali News oo af Soomaaliga af ingiriisiga ku soo bixi jiray xamar oo soo bixi jiray ayaan waxaan maxay ahayd ku daabici jiray sheekooyin dheer oo maaragtay ilaa 30 safxadooda ayaan ku daabici jiray aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Nuurdiin Faarax oo ah qoraa Soomaaliyeed oo aan kula kulannay magaalada Johannesburg dalka Koonfur Afrika waxaana barnaamijkan ama wareysigan qaaday anigoo ah Maxamed Muuse Nuur Deeqdarajo intaasi ayaan ku dhaafaynaa sidaas nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh